magaalada Muqdisho waxa ay hooy u noqotay in lagu dulmiyo dadka masaakiinta ah waxaana dhibaatooyin badan loo geystaa dadka masaakiinta ee ku nool magaaladaasi. Haddaba qoys ka kooban 5 gabdhood iyo wiil madaxa looga jiro ayaa waxa ay ka cabanayaan maxkamadda gobolka Banaadir iyo waliba taliyihii hore ee saldhigga booliiska degmada Yaaqshiid taliya Fanax iyaga oo sheegay in ay doonayaan in ay la wareegaan dhul ay hooyadood uga dhimatay. qoyskaasi aan soo sheegay Muna Maxamed Xuseen waxa ay ka mid tahay qoyskan 5 gabdhood iyo ninka madaxa looga jira ka kooban ee la dulmiyay waxaana cabasho ay ka tahay Aways Sheekh Wehliye oo ay sheegtay inuu maxkamadda gobolka Banaadir ka shaqeeyo iyo waliba taliyihii hore ee saldhigga booliiska degmada Yaaqshiid taliya Fanax nin ay magaciisa ku soo koobtay waxaana dawladda dhexe madaxdeeda sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ba ka codsatay suurtagalnimada in ay dhulkooda helaan dadkan dhulka lagu haysto iyadoo carabka ku celcelisay kuna adkaysay dad gashan shaatiga dawladda inay doonayaan in dhulkooda ay la wareegaan. waxaan on ka dacwo ka nahnay aan dhibaato nagu haayo iyo dhib nagu haayo waa maxkamadda gobolka Aways Sheekh Wehliye wuxuu nagu hayaa dhibaato fara badan anaga dukumeentigaas ayaan haysanaa waxa iskala hooyadeen Luul Amiir Cumar waxa ayaan ka dhaxalnay dhaxaltooy 5 gabdhood iyo wiil waalan ayaan nahnay waxaana la leeyahay maxkamadda markaan tagno gurigiina ka baxa guriga maxaan ga baxnaa yaa dacwo noo qabo yaasan noo qabo markaas ay la dacwo idin lama qabo idinkana uma qabtiin waa ina gurigiina ka baxdaa fulin aan la soo saaray fulinta waraaqadeedana si hadana nala siimay albaabada maxkamadda waana laga xirtaa waana laga celshaa dhibaatana lagu haya xukun meel u socday meel kale aan aqoon ayaan lagu rida oo waraaqadooda aan la siin gurigeena cid dukumeentigaas nagu haysato ma jirto waxaan ka araaranaynaa oo nagoon dhibaatada ay nagu hayaan in maxkamadda gobolka ayaa dhibaato nagu hayso markasta gurigiina wuu nagu cagajugleena saldhigga booliiska taliya Fanax woona dilay woona garaacay intaana saldhigga Yaaqshiid laga bedelin gurigiina ka baxa markaan dhahno waraaqadahana siinama uuna siin waraaqadaha waana lagu maadaya waana la dilaya waana la rafaadinaya waa dhibanahnay hana laga soo gaaro walaalahayna waa kuwaana meeshaan wada fadhina 5 gabdhood iyo ciyaalkooda maanta ugu dambeey saldhigga wuxuuna leeyahay ka baxa guriga meel aan ma naqaan maanta 8 saac guriga albaabada waa ina ka baxdina le dukumeentigaas cadayna aan haysana cidna la roogsanayso oo nala istaagayso oo dukumeentigan oo kala oo wadata ma jirto af ayaa noo laga bixino ii handadaad ii awood iyo shaati dawladeed ina noola gashta noo laga baxdo gurigeena waxa rabo dad ciidan ah oo waxa dawladda ka mid ah oo shaati dawladeed wato oo uma qalantiin gurigan 5 gabdhood ka baxana dhahay ayaa rabaan dacwo noolama qaadayo dacwo noolama furaayo galkeena meesha laga furmaayo xeer ilaalinta hadaan tagnay hadaan gobol tagnay hadaan mid racfaanka tagnay hadaan mid sare tagnay cid noo furayso oo dacwadeena noo qaadayso ma jirto waxaasna waa dukumeenti oo hooyada Luul Amiir Cumar ay ku qoran tahay mid oo wareejin aan lahayn waa dawladda hoose oo ka soo baxay oo cidna lagu waateeneeyadii dukumeentigaas anaga ayaa iskale milkiyadan u leenahay hooyadeena ka dhaxalnay waxaan ahay gabdho masaakiiman ah waxaan ahay gabdho oo waxba haysanin maanta caruurteena iyo anaga meelan aadna ma naqaano waxaan dawladda ka codsanaynaa oo sharafta laan ka sii codsanaynaa in ay maanta noo gurmad degdeg ah ay nagu soo fidiyaan maanta waxaa jirta dhibaatadana haysato waa u rafaan Fanax agool inana dila caruurteena qaarkood isbitaal la galay woona jir dileen shaati dawladeedana lagu dilaa shaati dawladeedana lagu dhacaaya shaati qaranana lagu dhacaaya naga soo gaara ra'iisul wasaaraha madaxweynaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda saro gudoomiyaha maxkamadda gobolka maxkamadda oo waxa naga soo gaar leeyahay gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabud waa inuu naga soo gaara waa dhibanaanay gabdho walaalaha oo dhiban ayaan nahnay waxaana gabdho rafaasan waana la dilaa
Soomaali wayna xoogayaan ciidan darku waxay wadaan oo dawladda ugu dilayaan walaalayaal waa idin baryaynaa madaxweyne ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay qeyre وين تابد دق مجالة تابد وين أنا جسوا قارتين تتكان شاتين نقول دعاء ما حكم رأس كشيء بين أبورك وين أنا جسوا قارتان وادي مني ورفضني لما سنة أي كان عسجاني حريهاي لما سنة أيو كان عسجاني حريهاي عندنا ما تنقر قارس إلهي موي ما نمجرته ما تيجي كقرب إذا قربنا وحنا الله هاي أو نديلا وشاتين الدولة دايان ولو ديلا ما أنت إذا قاعد دولة شعبك ما أنت إذا قاعد دولة شعبك ورفاسنا وادي بنانا وادي لنا ولا لا يروح هذه كبرينا دوكومينتي أو هالسنة قرقين هالسنة أو لبس سنة أيو حريا جناحسجا إد ما أنت نطلع معوكير إيه بلد دون قبتين نوهاين إيجو دون قبتين نو قبتين أي جناحسجا نجح حرين أي هذا نهاي أنكون والله هاين أنكون جوجنا مساكين من أنا ما أنت قرور يرينا هاي سنة ميران كل تجنا كل عرسنا ملا قاركودا قامد إسكين قارن القوة الفرع أيان هاي سنة ميران تجنا ملا وعن حوجا ورق الدولة أيان حوجا أنا قبينا الباب وحنو هاي سنة دوكومينتي أدي ما أنت كراك لأن الله صادقته وأنا قاعد كرتا تابد دق مجالة قبل لا ترى قبلك وأنا قاعد كرتا ما أنت هدي دوكومينتي متكان أو كلا إن الله صادقتار أما أي ورجين قرجين أو كجر وأنا قاعد كرتا ولا نجسو جارة وادي قبل دباتيسن أو ولا لين أيان نحن ما أنت كشعبك أحدين أو هي شعبك أمتاتين شعبك الدولة داتين وادي بناهنا نمكننا هاي نجا كرقاد إله بان نجا كرقاد كره ولا الوايد وعينا مدحوين وادي وعينا مدحوين وكو وعينا رئيس وزراء الماذا كده عيسى محمد حسين ما نقونيسا تي ugu horeysay oo hooyo Soomaaliyeed uga da'da magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya